بسم الله الرحمن الرحيم وادي سلام dhamaan akhyaarta meel kastoo dunida aad ka joogtaan maanta waxaan rabaa inaan sharaxo qaybaha ay ka koobnaan doonto koorsadeena Microsoft Excel koorskan wuxuu ka koobnaan doonaa ilaa iyo 4 qaybood oo waaweyn qaybta ugu horeyso waxaan ku baran doonaa waxyaabaha loo yaqaan foundations of the Excel-ka ama Excel-ka uu leeyahay cashirka koowaad ilaa iyo cashirka 15aad waxaan ku qaadan doonaa Excel interfaceska data entry-ga iyo basic-ga Excel-ka uu leeyahay qaybta labaad ee koorsada waxaan ku baran doonaa core skills-ka oo leeyahay Microsoft Excel laga bilaabo cashirka 16aad ilaa iyo cashirka 57aad ee course-ka waxaan ku qaadan doonaa formulas formatting iyo charts-ka qaababka loo isticmaalo qaybta saddexaad ee koorsadan waxaan ku baran doonaa waxa loo yaqaan data and analysis laga bilaabo cashirka 58aad ilaa iyo cashirka 85aad waxaan ku baran doonaa siyaabaha loo isticmaalo if VLOOKUP sorting pivot table iyo validation qaybta ugu dambeysa koorsadan oo ah qaybta ugu xiisaha badan waxaan ku baran doonaa automationka iyo advanced featureska oo leeyahay Microsoft Excel laga bilaabo casharka 85aad ilaa casharka 94aad ee course-ka waxaan ku baran doonaa siyaabaha loo isticmaalo Marcos sharing iyo toolska ugu waaweyn ee loo isticmaalo Microsoft Excel afarta qaybood ee aan kor ku soo sheegnay ay ka koobnaan doontaa koorsadan Microsoft Excel waxaan rajeynayaa inaad wax badan aad ka faa'iidi doontid xukumo janalka wixii faalaha noogu reeb qaybta commentiga